goobahan ganacsi muuqaaladooda aad arkaysaan xalifiidkii wuxuu ahaa goobo ganacsi oo aad u camiran balse ganacsatada qaar ayaa waxay ku mashquulsanaayeen ganacsigooda iyo xisaabinta nolol maalmeedka ama lacagaha maalinkii soo gala halka ganacsatada qaar ay qorsheynayeen in ay sii joogaan ganacsigooda goobaha ganacsi ilaa ay waqtiga u qorsheeyeen in ay xiraan goobaha ganacsiga balse mar qura waxa isbedelay jawiga balse in ay xisaabta ganacsigooda ku mashquulaan iska badaayay ganacsatada qaar ayaa nafahooda waxay kala baxeen musiibada xali ka dhacay halkaani walow dadaalo badan oo la bixiyay kadib waxaa lagu guuleystay daminta dabkii xalay ka kacay isgooska Banaadir ganacsatada qaarkood waxay dul taagan yihiin raadiga goobtii ay ku ganacsan jireen oo intooda badan ee dambas noqotay marka laga yimaado ganacsatada ku hanti beesha dabka waxaa jira danyar daasoon oo suuqa ku hoos noolaa kuwaasoo xaalad adag la soo daristay goobta oo aanu tagnay waxaa nagula hadlay ganacsatadii dhibaatada ku soo gaartay dabka iyo muruq maalkii oo nolol maalmeedkoodii kala soo bixi jiray suuqan basbeelay waxay noo sheegeen in ay u baahan yihiin gacan qabasho shacab iyo mid doolo dabka iyo sidoo uu fiday dabku ka soo bilowday irida عداني كسكيسة بشرة مركز كودجن كسماتكس لقو يبيجري إلا يوحو في لوقا قدارته أو مركز هوتيل بارادايس هوتيل بارادايس دربي سواء وجبي دبكو علابتي ويكدنتي يوحى كلو دبكا علايس كأنه إلا يحلقان أو مالنتي لبات حلي وليبة عصر أي تاي سوي وحويان عقفتي قرمة كسميني سوي حيس سميسي إن علابتي اسكدو مسو oo goobihii ganacsi kaliya ay ka fikirto dabka inuu safidin ay ku dadaaleen laakiin kama aysan fikirin hantida dadka dabka ku socda markaas wax ahamiyada lama siin balse gurmadkii koobaad ee meesha soo gaaray wuxuu uu diiradda saaray inuu xakameeyo kaliya fiditaanka dabka balse anaga nin ba meesha ila dhashay dukaanka meherad ku lahaa dukaan weyn ku lahaa hadda saawad awjeed dukaankii waa basbeelay saaka subaxii ilaa xilligan oo galaba aan taaganahay wixii oo gubtayna waa ugu gubteen wixii aan guban oo markaas cayma laha meesha ka daldalaynay runtii waan iska qadar rabbi oo haatan anagu ma celi karin waxa celi karna ma ahayn laakiin runtii waa wax musiibo ah oo meesha ka dhacay والله هو دريمي كرتا قف اللي يري أما هنتي هذه أقوبتي أما هنتي دي نكون كلها شاقوبتي وحب دريمي كرا دريمي يا ما في لين كنتي ما أنا إسلهين لكن أنت قدرت ما دافع كرنا سمعها قدر بان وضع علي إلى كبرين إلى قلبي ناقب وجي لما أنتي أو هنتي ده كان يكون قوبتي بدل خير خبا إلى كبريا وأنا أمد سماد وحنا وشيء إن كان هنتي ده كان قوبتيني يسود عيان إلهي وقلبي وقبوجي وحي إلهي كان والحمد لله وأوجد حالك سوي هاي wax oo makiinadii aad arkays qaar maxaa la hadda waa tala bixinayo maxaa la sheeg danooyin waaweyn gaareen sisin yaro maxaa la iyaduna qoydayo haga waa taala alxamdulillah imanka Allah nagu sugo ya soo gaartay marka la qosay dabku wuxuu ka kacay koronto wuxuuna ka kacay guriga saddexaad oo lagu gado shoppingka hadda wixii Ilaahay keenay waa alxamdulillah waana la saaciday oo hadda gurmad wana loo soo diray oo wana loo keenay niman daminayo wana loo keenay gudoomiyaha degmada madaxdu waa noo imaadeen hadda alxamdulillah waxaan u duceynaynaa dadka muslimka oo masaakiinta oo hantiiladoodii ku gubatay halkan Ilaahay waxaan uga baryaynaa bedel khayr qaba in Ilaahay siiyo xoolo ugu ma soo deeqayno xoog kalena ugu soo deeqmayna balse ducada ayaan ugu soo deeqaynaa maadaama ay dadka yihiin walaalaha yihiin antidoodii gubatay waxoodii baaba'een booqashaan ugu nimid meeshaan soo nimid tacsiibaan ugu nimid in Ilaahay waxoodii uga samirna ka siiyo bedel khayr qabana siiyo ayaan ugu soo dacaynaa oo ugu nimaado
أي عملياش مش شخص تاني وقارق عليه ووجد سوالنا قارياش وانا وقبتن ساعة عاو حكبا المي عشو مهين واسك جايسيهن وحرنا أنا سيدك نقص عابنتين ولا لي مسلمين تا waxaan ku shaqaysan mal gaar gacalihii kulli dabkay taayeen ilmihiina qaxootiga ku jirnaa meel la dhahay weedo la deganahay waa iska gaajeysanahay gaariyaasha ku xamaalneen waa gubteen marka si degdeg ah nagu soo caabina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda Soomaaliyeed meel bay joogto waan salaama dal iyo dibad meel ay joogtaba aniga hadda waxaan ahaa meeshaan maraaye dad kamid ah aan wareystay oo dadka ganacsatada oo meeshaan yaani mataqaana ganacsiga ku lahaa waxay ii sheegeen qaar kamid ah inay xataa malaayiin dollar oo lacag inay meeshaan ugu gubatay oo maanta aysan wax ay ka hayaan ay sujirno ay ka faramaran yihiin marka runtii xalay meeshaan masiiba ka dhacday dad badan ku hanti waayay qof walbana wuxuu haysto ku waayay marka dadka Soomaaliyeed gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga inta waxaan ugu baaqi lahaa in dadkan loo soo gurmado oo runtii si degdeg ah loogu soo gurmado oo yaani mataqaana dawladda Soomaaliya ay u gurmato oo gobolka uu soo gurmado oo ganacsatada Soomaaliyeed ay soo gurmadaan oo qurba joogto ay soo gurmadaan ayaan ku tali lahaa dib weyn ah runtii meeshan ka dhacay waxaan aniga ahaantayda si gaar ah shakhsi ahaan maxaa la yiraahdaa aan maanta la mid ahay intaasoo carwo isxariirsan ama intaasoo baqaar ninkii igu gubtay waxba ma dhaama maanta ilaahay weynay waaxid ahaa ayaa ka warhaya qalbigayga aad iyo aad aan uga naxay runtii waxa weeyaan si halhaleela ayaan u imaaday saakay indhahaygu waa sixi waayeen waan iska tagay hadda ayaan ku soo noqday haddana intaas kaliya macnaha waxaan la murugoodaan la yaabay oo aad u la yaabay dabka intaas la eg waxba kama reebinba meeshii labaha carwo iyo laba sandaqadood maana wax kale meeshii kuma harin marka runtii aad iyo aad aan uga xumahay bulshada sida aad ka uga tiiraanyeysan ayaan kamid ahoon ugu horeeya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan leenahay dadka kan masiibada ku dhacday Allah subhanahu wa ta'ala bedelkooda oo khayr badan ha siiyo meesha tan waxa ka dhacay masiibo sida aan u jeedno gaar ahaan maad fidaar iyo ninka la yiraahdo ilka case ayaan u naqaanay dukaamada kan meesha tan ku gubtay meeshaan waad u jeedaan waxa ka dhacay marka waxaanu leenahay ilaahay bedelkooda khayr qaba siiyo dadka kale oo beledka ku nool waxaanu leenahay waxa kan masiibada oo dhacaya maalin walba waa loo jeedaa dadku inay iska qabtaan ayaa loo baahan yahay suuqan ayaa ahaa isdulsaar goobaha ganacsi ee isku wada dhagan yihiin taasina waa tan saamaxday in dab ka kacay hal goob oo iskaga gudbo dhammaan meheradaha khasaaraha baaxadda lehna uu geysto dawladuna wax war ah kama soo saarin xaddiga khasaaraha hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka وقار كميدا فايدوين كأديق إنترنت كهرمود ADSL Plus قريقا حفيزكا أما حرونت الشركة دادا استعمال ADSL Plus وكحرنو دونيدا